maalmihii aan soo dhaafnay ay ahayd markii madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi uu digreetay madaxweyne ka soo baxday xafiiskiisa ku magacaabay xubnayo sidoo kale agaasimayaal haddaba Liibaan Ismaaciil Cabdilaahi oo ahaa xubinta loo magacaabay komishanka maamulka iyo dagaalanka musuqmaasuqa oo maanta la hadlay telefishinka caalamiga badda cas 24 TV ayaa ka waramay dareenkiisa ku aadan xilkan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu magacaabay isagoo sheegay inay gudanayaan waajibaadka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu egmaday waxaana hadaladiisii kamid ahaa runtii dareenkaygu doraad iyo maanta waa mid kala duwan waxaan loo egmaday waa mas'uuliyad iyo xil ummadeed oo inta qaranka kaalintii kaga haboon la guto marka waa dareen ka duwan dareenkan qabay waxaan dareenkan dareemayaa waxa weeyaan mas'uuliyadda iyo xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu eegmaday inay tahay mid culeyskeeda iyo baaxadeeda leh runtiina waxa la qaado oo hawl la qaado waxa ugu culus waa adeeg ummadeed iyo xil ummadeed marka runtii waxaan dareemayaa inay tahay mas'uuliyad culus oo u baahan dhugashadeeda iyo fahansanaanteeda madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland maxaad maanta u dhalay runtii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo madaxweynaha shacabku doorteena marka koowaad mahadnaqa Ilaahay baa iska leh mahadnaqa Ilaahay ka soo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu qaranka uu ku soo kordhiyo jiilkii dhalinyarta ah si ay kaalintoodii hogaamineed u qaataan oo ahayd ballanqaadadii xisbi ahaan aanu ballan qaadaynay inuu runtii muxuu haayay uu sidoo yahay iyo labilaabo fuliyo runtii waa mid aan uga mahad celinayno hogaamiyahana muxuu haayay astaamaha ugu wanaagsan ee hogaamiyuhu uu yeeshan waxa ugu mudan inuu soo saaro hogaamiyaashii isaga bedeli lahaa kaalinta qaadi lahaa marka runtii muxuu haayay taasna waa mid ka mid ah astaamaha hogaamiyaha wanaagsan oo madaxweynuhu ay sifaheegii iyo dhiirashadeediiba la yimid marka runtii waan uga mahad celinaynaa fursadda iyo waajibaadka qaranka inuu raahdo u adeega qaranka qaybtiina waayahay Liibaan ugu dambeyn xilkaasi lagu magacaabay xubinimada komishanka maamulka ee dagaalka musuqmaasuqa sidee baad u aragtaa runtii muxuu haayay komishanku waxa weeyaan inay komishanka maamul wanaaga qaranka runtii maamul wanaaguna waxa dunidu ku kala horumarto runtii waxaan insha Allah ku fulin doonaa muxuu haayay xeerarka iyo muxuu haayay shuruucda dalka si ay u taalo insha Allah bidnillahi kareem team ahaan naloo soo wada magacaabay runtiina waxaan u arkaa inay tahay meel muhiim oo qaranka maamul wanaagiisa qayb tii ugu muhiimsanayd oo dunidu wax kala horumarta wax weeye waa maamul wanaag waana himilada madaxweynaha iyo xisbiga kulmiye iyo barnaamij siyaasadeedkii xisbigaba aan ku cadaynay in daafurnaanta iyo maamul wanaaga intii ay Soomaaliland soo gaadhay la sii xoojiyo runtii markaa muxuu haayay waxyaabaha mabaadiida guud ee qaran ahaan ay leenahay dastuurkeenu kamid yahay xeerarkii maamul wanaagu kamid yahay hay'adda laftigeedu way ku aasaasan tahay barnaamij siyaasadeedka xisbiga himilada madaxweynaha inaha soo iskaashaday aan ku shaqeyn doono Cabdulaahi Ridaash telefishinka caalamiga badda cas 24 TV magaalada Hargeysa.